tani intii ka dambaysay markii ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska David Cameron uu ku baaqay in shir lagu qabanayo magaalada London kaasoo loo qabanayo ummadda Soomaaliyeed isla markaana lagaga hadlayo la dagaalanka burcadbadeedda argagixisada iyo waliba xasiloonida geeska Afrika ayaa waxaa la sheegay in si nidaam sare loogu soo xasumay madaxda ugu sarreeyay Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana maanta telefishinka caalamiga Home Cable TV xiriir uu la sameeyay wakiilka Soomaaliland u fadhiya dalka Jarmalka iyo waliba madaxda ugu sarreeyay jaaliyadda Soomaaliland ee dalkani ka dhisan iyagoo fikirkooda ka dhiibanaya sida quruxda badan ay u soo dhaweynayaan in madaxda Soomaaliland ay ka qayb gasho shirka lagu qabanayo magaalada London ee dalkaasi Bismillahir Rahmanir Rahim waxa weeye arrinka shirka lagu qabanayo haddii Ilaahay ka dhigo waddanka Ingiriiska magaalada London waxaan rajaynayaa shirkaas inaan inaga wax dhibaato inooga imanayn. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Anigoo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliland ee Jarmalka waxaan aad u taageersanahay in ay Soomaaliland ka qayb gasho shirka ka dhacaya 23 bishan aynu ku jirnay February waxa weeyaan waa chance aad iyo aad u wanaagsan oo aan weligan ina soo marin doonina waxa ka soo qayb galiya konto wadan marka waxa weeyaan waxa haboon inaynu mowqifkeena iyo go'aansitaageena iyo wixii aynu qabsanay inaynu ummadda shirka ka soo qayb galaysa inaynu uga warno aynu soo hordhigno marka inta aan taageersanayna waxaan ku dhiirigelinayaa inay dawladda ku dhiirigeliso ku taageerto shirkaan ka qayb gala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Anigoo ah xogayaha jaaliyadda Soomaaliland Cabdi Michael shirka ka dhacaya 23 bishan Ingiriiska waan taageersanahay waxaan jecelahay waxaan rajaynayaa hadii Ilaahay raali ka noqdo inay ka soo bixi doonaan wax Soomaaliland haddii nahay in naafa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Magacaygu waa Ismaaciil Aadan aniga ku hadlaya magaca jaaliyadda Soomaaliland ee Germany marka ugu horeysa waxaan mahad celinayaa Ilaahay mar labaad waxaan mahad gaar ah u dirayaa TV-ga Home Cable TV oo noo suurageliyay inaan xaggan ka dhiibano filadayda haddii aan kusoo noqdo fikirkayga ah shirka 23 bisha lagu qabanayo London anigu aad baan u taageersanahay balse muhiimaddu waxa weeyaan talooga baahanay dad la timaada waa xukuumadda Soomaaliland inay mabda'ayga soo bandhigto oo ay ku soo magaranaysaa mowqifkeeda meesha ka cadayso balse aanay ahayn in la cid kale ee dana saaro la Ingiriis baa wax qasaya ama Soomaali kale wax qasasa muhiimaddu Soomaaliland si gaar ah iyadoo habaysan meesha timaado deetana mowqifkeeda ka dhiibato. dhanka kalena wakiilka Soomaaliland u fadhiya dalka Jarmalka Cabdi Aadan Warsan Abu Hurayra ayaa cabasho weyn u soo jeediyay wasaaradda arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu sheegay in si toos ah ay ula shaqeynayaan xafiiskiisa isla markaana ay ka xaniban yihiin waraaqo uu sheegay in muddo hore uu gudbiyay wasaaraddaasi sida uu hadalka u dhigay. xafiiskayga ilaa 2004 lagu soo magacaabay markii hore anigii Cabdillaahi Allah yarhamu aanu ahayn mid kaayno hore Maxamed Kaaylo Jarmalka waxba iskama bedeleen intii madaxweyne hore laba jeer halkan iyo yimi qoladan dambana imika wax yar baabay hayeen oo dee arrinkaa weliba lama gudagelin anigu waxaan rajaynayaa ama si aan ogahay Jarmalka in si fiican looga faa'iidaysanayo haddii loo hawlgalo oo xafiiskan la xoogeeyo waayo dadkii ugu horreeyay waddanka soo galay baan ahaa Jarmalka mentalitygiisa iyo meelaha dhowr safaaradoodna waa kasoo shaqeeyay tii Soomaaliya ka mid tahay tii Kuwait ka mid tahay marka brotocolka dadkan Jarmalka iyo mentalitygoodaba nin aad u yaqaan baan ahaa dadkii ugu soo horreeyay baan ahaa markaa nimay saddex qofna ma joogin meesha kolka waxaan leeyahay dhaqaajiya idinku oo waraaqihii hore aanu haysanay ee ahaa Cabdillaahi baa wax walba laga talagelinaya meel walba oo aan galo lagu xirayo in dee la bedelo. Mustafa Xaaji Aadan Haaruun wararka Home Cable magaalada Marburg.